إنه هاي شافتي حطيت يدك النقول هاي الإحسان النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول إني أحرجكم وحال إذا كنت باجريا وكبقرينا كنت بودان يعني حق الضعيفين لماذا اعتبرت الدران حقهم ودمرك هي عروض marka dumarka iyo caruurta iyo dadka waaweyn ee gabdhoobay hawlgabka ah iyo agoomaha dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka qaba iyo dhammaan waxa la yiraahdo wixii daryeel u baahan bulshada dadka fuqarada ah masaakiinta dadka deynta la tiicaya dhammaantood daryeelkoodu waajibu islaamka uu ka dhigay waana wuxuu ku bixiyaa zakada oo almasaarif athamaaniya baa la yidhahdaa lizakaa sideedda qaybood ee zakada la siiyo dhammaantood waa dad loogu talagalay in la daryeelo marka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب marka dadkaas ayaa zakada la yiri hal siiyo waana dadkii dhamaan in la daryeelo ay waajib tahay shariicadeena waxa kale oo shariicadeenu ay daryeeshaa qofka ka daryeeshaa oo u ilaalisa shan meelood waana shanta qodob ee diintu ay ku taagan tahay ee u soo degtay waxa qofka naftiisa in la daryeelo midna waa aqligiisa in la daryeelo midna waa cirdigiisa iyo sharaftiisa in la daryeelo midna waa in diintiisa la daryeelo iyo waxa uu aaminsan yahay midna waa in maalkiisa la daryeelo shantaas tiir ayay shariicadu jaangoysay in shariicadu oo dhan intaas ku urursanta shantaa qodob la daryeelo marka daryeelkaas bulshooyinku iyo dawladuhu way ku kala horumarsan yihiin dawladaha inaga horumaray baa jira oo waqti hore iyagu horumar ku tiigsaday oo namuudaj noqday tusaale adduunyada inteeda kale u noqday sida caafimaadka uga shaqeeyeen tacliinta biyaha hadeed baxooga daryeelka dadkooda howlgabka ah dhinac walba ilaa qawaaniintii bay u sameeyeen xeerarkii bay u abuureen daryeelaya ilaalinayay isla markaana way u diyaariyeen dadkooda wixii ay ku daryeelayeen marka noloshu waa daryeel horta jabigeeduba waa daryeel marka wasaaraddeena oo maanta hogaaminayo wasiir cali xorxoor wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyada ayaa ah ta inoo sida calanka shaqadan in maanta halkan u fadhino iyadaynana u daba fadhinaa iyadaana isu keentay waanu ku mahadsanay wasiirku inuu siyaasaddii qaranka ee ku aadanay daryeelka bulshada iyo ilaalintiisa uu xeerkiina wado aqoon isweydaarsiganna uu dhammaan wasaaradaha ka soo qayb geliyey xooggoodii iyo shaqaale weynaha oo aad iyo aad isaguna hawshaa runtii qayb weyn uga qaatay marka waxaan leeyahay arrinkan wuxuu inooga baahan yahay hal fadhi inoogama baahna iyo 10 fadhi toonna inaynu cumrigeennaba ku qaadano weyn oo shaqo ka dhigano waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa iyaduna hay-adda UNICEF oo ka mid ah hay-adaha UN-ka maaragtay dee وهيئة الأمم المتحدة للطفولة باليضة لرعاية الطفولة دريالك عرورة كو عام بحري كل استقال بقوليو لحيا فرتك يبقى على أساس من وقت إلى إمك وحاد بيضو لأسكوها فقصنتك هنا يتهاي هيدها هريال كوؤة UN-ka يدو يدو إمك العقد وضعيو تبرعات كده كشبان سي أيوة قيب قاطان دريالك قيبه هذا كلا دوان marka risaaladii loo aasaasay qaybo badanna way gudatay inaga waqti dambe inay soo gaadhay
markii hore Yurub dagaalkii labaad adduunka dabadiisii Yurub ay xoog uga shaqayn jirtay laakiin iminka innaga inta dambe hadda xoog loo timi markii dunida kale ay daryeelkeedii wax badan ay ka gaadheen Nobel Prize fara badanna waa laga siiyey adduunka ay ku qaateen 1988 waxa dhintay 15 milyan oo caruur ayaa dhintay oo markay dunida يلي وركعة يتبرعات دولية أيون الشف لو شوي الشعار كي هالكودجي التعليم للجميع هاي الاستعمال لي هاي أرنكا كذا مركا هذه هاي إن قال الشقين سهوشة يونسف وبرامج جنب إن قال الشقي سنة وزارة كلا الشقي سنة وزارة كلا كلا الشقي سنة هذه عاد بنسركي شو ده وقوم هذا